warbixin uu daabacay wargeyska The Mirror ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daaha ka qaaday sir la xidhiidha nolosha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Master Kim Jong-un. Wargeyska ayaa sheegay in Kim Jong-un uu isticmaalo suuli u gaar ah oo uu qaato marka uu safarka ku jiro. Xamaamkan ayaa ah mid u gaar ah Master Kim Jong-un, taas oo sahlaysa inuu xaajadiisa ku guto marka uu ku dhex jiro baabuurkiisa oo safrayo. wargeyska oo sheekadan ka soo xigtay ilaha warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa xusay in fikradda Kim Jong-un ee ah in suuli looga dhex sameeyo baabuurka ay la xidhiidho sababo amni. wargeyska ayaa intaasi ku daraya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ka cabsi qabo in wax kasta iyo suurtagalnimada waxyaabo ku jiri kara kaadidiisa iyo saxaradiisa ay ku dhacaan gacanta dhinacyo shisheeye, taasi oo sahlaysa in la ogaado xaaladiisa caafimaad. dhanka kale tareenka gaarka ee Kim Jong-un iyo baabuurkiisa oo dhan waxa ku samaysan suuliyo u gaar ah Master Kim, waxaana dhowaanahanba shaki laga muujinayay caafimaadka Master Kim, gaar ahaan markii uu ka soo muuqday shaashadaha isaga oo miisaankiisu isdhimay. ila wareedyo ayaa sheegaya in Kim uu la il daran yahay xanuun halisa, halka warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ay beenisay warkaasi, iyadoo sheegtay in hogaamiyahani uu raaco nidaamka cuntada caafimaadka leh. sawir laga qaaday Kim Jong-un intii lagu guda jiray shirweynihii 8aad ee xisbiga shaqaalaha Kuuriyada Waqooyi oo ay daabacday wakaaladda wararka ee dalkaasi bishii Disembar ee la soo dhaafay, ayaa dhaliyay muran ku saabsan caafimaadka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Master Kim Jong-un. dhanka kale, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap oo iyadu ah tamar walba indhaha ku haysa Kuuriyada Waqooyi maadaama uu xifaaltan adag ka dhaxeeya labada dal, waxay sheegtay in kalarka shaadhka ee Kim Jong-un aanu ahayn mid cidhiidhi ku ah oo ku dhegsan, kaas oo laga dareemi karayo dabacsanaantiisa amaba ballaqsanaantiisa, iyadoo ay u bannaaneed meel yar oo far laga soo gashan karo, taas oo ah qaab u eg habka dharxidhashada suudhka ee dhaqanka reer galbeedka. reer galbeedka oo aan marnaba indhaha ka jeedin arrimaha Kuuriyada Waqooyi iyo xaaladda Kim Jong-un ayaa iyagu isku dayaya in ay mala awaalaan xaaladda caafimaad ee uu ku sugan yahay Kim Jong-un, kuwaasi oo cuskada arrimo dhowr ah sida cabistiisa badan ee sigaarka. sida la og yahay, baadhista saxarada iyo kaadidu waxa lagu ogaan karaa xaaladda caafimaad ee uu qofku ku sugan yahay iyo dawooyinkii hore ee uu qaatay, waana sababta la filayo in Kim Jong-un uu isku daba sido suuligiisa. hogaamiyaha Kuuriyada Master Kim Jong-un ayaa ka mid ah hogaamiyayaasha dunida kuwooda ugu ilaalada adag, sidoo kalena ugu taxadarka badan ee aan jeclayn in la ogaado xogtiisa iyo tadalkiisaba, waxaana marar badan dhacday in qoorta loo dheereeyey madax iyo weliba xubno la ogaaday inay gudbiyeen xogo ku saabsan dalka Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong-un ayaa ka mid ah madaxda ay ka qayliyeen reer galbeedku, isla markaana marar badan ka baxay oo weliba hanjabaada ugu daray kadib amaro reer galbeedka gaar ahaanna Maraykanku uu ku doonayay inay Kuuriyada Waqooyi ay joojiso soo saarista iyo bacriminta hubkeeda waxgumaada ee nukliyeerka.